توشو لا يفاق جرا يدلين والله أنا كايلين لما دقيقة كده من دور ميدي انت فريستي لا أصحابي رالي هذا وروحا وجهلي روحا وإذا بدروا ورابا كبدا بهد أو كبدا عريفي اللي يرادوا مصلحة قوي مقعد حوها عريفي وركبدا عريفي اللي يرادوا مصلحة أو قوي نك اللي يرادوا عطوش ورنك وكبدا هلقبت ما تبحث فرق صار لا يفاق جرا فرق صار wuxuu leeyahay yaa dadka laga waalinin dadka ceebahooda hal la asturo waxa uu qarsoonada laga rabaa sheekh noo sheeg miskiin barangi maxaa la yidhaahdaa durdur miidiya markay hoos u dhacdoba nin balaayaa oo dhallinyaraa oo ummadda diintooda iyo dhaqankooda duulaan ku ah ay la yidhahdo catoosh ay musiibo ah ayaa wuxuu sameeyaa been iyo argagax war ilaahan igu dhaariye faamilka maanta dadkii dhisay may hadlaan war aawa dadkii lacagaha ugu deeqay war aawa dadkii laga magacaawaayey miidiyaha war maa la soo xiriirtaan oo war ummaddan iyo diinta iyo dhaqanka u ilaali annaka dad muslimaan nahay waan ku taageernay walaalow guri baan kuu dhisnay walaalow ummadda diinta iyo dhaqanka u ilaali dhaha bani aadamku markuu wax ku siiyo warkaagu waa maqlayaa mogta runtaa rabaa inaan niin sheego aniga ruuxa wax itaro markuu isoo waco waxaan diyaar u ahay inaan dhegaysto soomaalida rabaa inaan runta niin sheego ha sheekh soo dhawow aan dhaha maxaa yeelo garaw uu isiiyey war catoosha dhaqan xumada uu baraha bulshada ku hayo maxaa ka mid a maalin hore gabar muslimada uu ka waalaayay markaasuu leeyahay baraha bulshada gabadha ugu buuran way socotaa way dhaqaaqday war ashxumadiisa fiiriya ilaahay nagu dhaariyay ninka war ilaahay nagu dhaariyay fiiriya wadaadka hadlaaya ma aragteen war aniga waxaan rabaa inaad diinta iyo dhaqanka ilaashataan aan rabaa wax kale niga ma rabo ugu buura magaalada muqdisho waa kan waa ay soconaysaa ridwaana ruux nafle haye way socotaa waxay doonaysaa inay doonato barodhagtiga laisku caateeyo ee laga helayo carwada haldhaa kambani markan waa kan wadada maka almukarama ayay socotaa war dhaqankiina yaa lagu soo duulay war diintiina yaa lagu soo duulay waddankan gacmo fara badan baa ku soo duulay way dhaqaaqday way soconaysaa gabadha ugu buuran baraha bulshada war ilaahay nagu dhaariyay fiiri yaa yidhi kilowaadkeedii iyo cayilkeeda sheegayay waxaasoo dhan xasan toobaa ka dambeeya waa nin musiibaa dariishadu intuu isku qariyo uu leeyahay cantob baasha kala kici catosh baasha kala kici war xasan toobow ilaahay ka cabso warsaan xoolo looma raadiyo magacna looma raadiyo in la kaftamo shareecadu ma ogashahay ha anigu dadka waa la kaftamaa waa la ciyaaraa soo ma jeedi inaad xaaskaaga caruurtaada dadka baahida gaarka qabo inaad meel qurux badan aad tagtaan ya ama dayniile ama daarusalaam oo kale ee aad ilmahaaga iyo xaaskaaga waqti la qaadato shareecadu way ogoshahay nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadu la ciyaari jiray xadiiska tirmidi iyo musnad axmed aa soo saaray abi hurayra warinay can abi hurayrata qaala saxaabada nabigu maxay dhaheen sal alay wasalam qaaluu yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow suubanow sala allahu calayhi wasalam innaka tudaacibuna nebi allow waa adigaa nala ciyaaraya ya nebi allow waa adigaa nala ciyaaraya ee nala kaftamaay muxuu yidhi qaala innii laa aquulu ilaa xaqan anigu odhan maayuu yidhi kelimad xaqa waxaan ahayn hatooshow leefaan ku jiraa idilin wallaahi inana kaayeelin laba daqiiqa kadibna durdur midii inta fadhiisatay leedahay asxaabay raalli ahaada war waxaan waa jahli ما تبحث فرق صار لا يفاق جرا فرق صار
وإذا بدروا ورابو قبدا أبهد أو قبدا عريفي اللي يرادو مصلحة قوة مقعد حوها عريفي ورقبدا عريفي اللي يرادو مصلحة أو قوة نك اللي يرادو عطاش ورنك وقبدا هلا قبط ورعريفي ومضى هلا قبط دردر ميديا وحيابها بلشدة قلتك أي كجلين ربعنا نيجي مات haweenka Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jiro ay diinta islaamka jecel rabaa inay ka soo hadlaan yaa durdur miidi yaa ugu horeeyay nin raga inuu 7 digo ama 3 u digo 22 sano ayaan reer leeyahay ina xaaji Ibraahim Cali Wehliye ayaa waxay dhihi jirtay meel heblaan aadi 3 aan rabaa 7 lay soo digay lacagaan rabaa wiligay maanan arag nin digaayo 7 wiligay nin 7 digaayo marag waxaa dhacday durdur media gabadhii aabaheed oo ducadii loo duceynayay joogo ayay horta waxay ku qabteen kaamiro waxaan rabaa Xasan Toob dhaqanka ummadda Soomaaliyeed oo ugu gafaarba inaan midni igu tilmaamo wuxuu ri adeer cuntada ka waran waa qodobka koowaad waay jana aabeed xitaa uu jooga marka waa kana adeer Saalax soo dhow waa dhawaay hayse aragta arooska gabadhaadii iyo wiilkaaga arooska gabadheeda si aad aan ugu faraxsanahay wiilkayga waa ku faraxsanahay khashbashi barwaaqo asxaabtan ku fadhiisana waa ehelkooda asxaabtan ila fadhiisana waa ehelkayga iyo qaraabada marka qadada ka waran barqada si wanaagsan ay u fiicantahay kala xasantahay qaybta labaad wuxuu Xasan Toob sameeyay 7 in la digo oo nin raga inta codbaahay u dhiibay oo jidka Makka al-Mukarrama inta fadhiistay oo mar uu meel u booda asuu leeyahay 7 mas magaciisu xoohay Atoosh musiibo way mar walba iga dunyahay Atoosh 7 soo dhow yey ku dhaafin soo jeed qaybta saddexaad oo Xasan Toob dhaqanka ummadda uu kula tumta waxa kamid ah gabar 7 ku jirto oo habeen iyo maalin meel taagan yaar war dhaqan aan leenahay Soomaaliyeed yaa arkay ninka la yiraahdo Atoosh iyo Cariifay ka hor yaa arkay haleekeeno meel ay ka dhacday gabar la leeyahay 7 ku jirta ee habeen iyo maalin maqaayad taagan ee meelaha cosmetics-yada iyo shopping-ka ka muuqato Atoosh ka hor iyo Cariifay ka hor lama arag durdur media dhaqanka ummadda ay duulaan ku yihiin waxyaabaha ay tabiyaan inta ugu badan waa wax diinta islaamka ka hor imaanaya Atoosh arooskiisii 7 inay aheedaan jeclahay lay soxo haday xusuustii qiyaanto gabadhii arooska madaxa ka aheed waxay tiri gabdhaha Soomaaliyeed ee arooska imaanayo waa inay isu soo qaawiyaan anu waa yeelan ahay muslima been ma sheego ficiltan kana ma aqaan waxay waa itusiye itaabsi shantaya la yiraahdaa gabadha waxay tiri qarash baan galay gabadhii rabto inay jalaabiib ku timaado 7 yey noo imaanin Xasan Toob warkaas kama tabatigin garabku ka fadhay shib buu yiri diinuuna shuqul ku lahayn moogta war Xasan Toob ummadda diintooda u ilaali war baraha bulshada magac ka raadi oo xawla ka sameey laakiin walaalo ummadda diinta iyo dhaqanka loo ilaaliyo war ummadda diinta iyo dhaqanka loo ilaaliyo durdur media ummadda duulaan bay ku tahay laba shay oo muhiimana duulaanay ku tahay diinta islaamka iyo dhaqanka duulaanay ku tahay durdur media
anshaxumada ka socoto wax loo dul qaadan kara maaha. anugu youtuber mihi moogtahay, waxaan ahay nin muslima oo daaciya. hawshii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisiyaan rabaa inaan ummadda u qabto, cidna kaga heebaysan maayo. jahliga meesha laga gaaro u fiirso. 5 daqiiqo kadib durdur miiday inta soo fadhiistaanay hadle hadalkana iidaa ku hormarto asigoo kuma hormarin. guriga yaa hogaamiya, macaariife yaa hogaamisa, mase catooshaa guriga hogaamiya. anugu weli waan kala fahmi lahay markaan runtan ii sheego. 100 maran waxaan aragnay iyadoo dhahaysa aamus, iska fadhiisa xagga anaa la hadlaaye. war gabadha akhlaaqdeeda ha la ilaaliyo, war gabadha diinteeda ha loo ilaaliyo, war gabadha dhaqanka iyo diinta ha ilaaliso. carab dhirka ay baraha bulshada la fadhiisa ha joojiso. dhaqan iyo diin ilaali markii la yiraahdo baraha bulshada inta soo fadhiisatay qaylihe xataa ma xishoo hayso. adeerow gabadhayni yaa tahay xisho, waa markii labaad aan fariin kuu dirayno. gabar yahay muslimka ka fadhiiso, gabar yahay xisho, gabar yahay is aruuri, gabar yahay gaabso. gabdhaha Soomaaliyeed waa gob xishood iyo is aruurin baa lagu yaqaanaa. maxay ahayd gabar af dheer? war xisho adeerow, adeerow xisho.